Asalaamu calaykum. Halkani waa qaaradda Afrika, midda labaad ee ugu weyn qaaradaha adduunka, badgaaraya 30 milyan oo kiiloomitir square ah, taasoo u dhiganta percentage ahaan 20% bariga adduunka. Waxaa ku yaala 57 waddan oo rasmi ah loo aqoonsan yahay. Waxaan maanta kula wadaagi doonaa 8 waddan ee ugu weyn qaaradda Afrika dhul ahaan iyo macluumaad degdeg ah oo ku saabsan waddamadaas. Kusoo dhawaada maanta muuqaalkeena. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo like noo saar si uu muuqaalka meel dheer u gaaro. Mahadsanid. aynu ka bilowno kaalinta 8aad. Kaalinta 8aad waxaa ku jira dalka Mali. Mali waxay dhacdaa galbeedka Afrika. Badkiisu waxa uu ku fadhiyaa 1.2 milyan oo square ah. Caasimadiisu waxaa lagu magacaabaa Bamako. Waxa uu xuduud la leeyahay 7 waddan. Waqooyiga waxaa ka jira Algeria, barigana Nigeria, waqooyi galbeed Mauritania, koonfurtana Burkina Faso iyo Ivory Coast, halka galbeedku uu ka jiro Guinea iyo Senegal. Dadkiisu waxa uu kor u dhaafayaa in ka badan 14 milyan. Kaalinta 7aad, dalka Angola. Angola waxay dhacdaa xeebta galbeed ee bartamaha koonfureed ee qaaradda, waana dalka 7aad ee ugu weyn qaaradda Afrika iyo midda 23aad ee ugu weyn caalamka. Badkiisu waxa uu gaarayaa 1.2 milyan oo square ah. Waxa uuna laba jibaar ka weyn yahay dalka France. Angola waxa ay xuduud la leedahay 3 waddan oo kala ah Namibia, Republic of Congo iyo Zambia. Dadkiisu waxa uu gaarayaa in ku dhow 36 milyan. Kaalinta 6aad waxaa nagu jira dalka Niger. Niger waxay dhacdaa galbeedka Afrika. Badkiisu 80% oo wada saxaro. Dadkiisuna waxaa lagu qiyaasaa 22 milyan. Caasimadu waa Niamey. Waxayna xuduud la wadaagtaa ilaa iyo 8 waddan. Kaalinta 5aad waxaa ku jira dalka Chad. Chad waxaa la dhahaa waa wadnaha Afrika. Waxa uu badkiisu ku fadhiyaa in ka badan 1.2 milyan oo kiiloomitir square ah. Caasimadiisu waa Djamena. Dadkiisu waa 117 milyan. Kaalinta 4aad waxaa ku jira dalka Liibiya. Liibiya waa waddanka 4aad ee ugu weyn qaaradda Afrika iyo midka 17aad ee ugu weyn adduunka. Badkiisu waxa uu kor u dhaafayaa 1,700,000 oo kiiloomitir square ah. Caasimadu waa Tripoli, waxaana ku nool in ka badan 1 milyan. Kaalinta 6aad, Suudaan. Suudaan waxay dhacdaa waqooyi bari ee qaaradda Afrika. Badkiisu waxa uu kor u dhaafayaa 1.8 milyan oo kiiloomitir square ah. Caasimadiisu waa Khartoum. Dadkiisu waxaa lagu qiyaasaa 45 milyan. Kaalinta 2aad ee dalalka ugu weyn Afrika waxaa ku jira Democratic Republic of Congo oo loo soo gaabiyey DR Congo. DR Congo waa dal dhaca bartamaha qaaradda Afrika, waana dalka 2aad ee ugu weyn Afrika iyo midka 11aad ee ugu weyn adduunka. Waxa uu xuduud la leeyahay 9 waddan. Dadkiisu waxa uu gaarayaa 99 milyan. Caasimadu waa Kinshasa, waxaana ku nool dad gaaraya 17 milyan oo dad ah. Kaalinteeni ugu dambeysa oo ah kaalinta 1aad waxaa ku jira dalka weyn ee Algeria. Algeria waa dalka ugu weyn Afrika iyo midka 10aad ee ugu weyn adduunka. Badkiisu waxa uu gaarayaa 2.3 milyan oo kiiloomitir. 80% waa dhul saxaro ah. Dadkiisu waxa uu gaarayaa 44 milyan. Caasimadu waa Algiers, waxaana uu xuduud la leeyahay ilaa 6 waddan. Intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa maanta muuqaalkeena.